dowladda Itoobiya ayaa maanta ciidamo hor leh oo aad u hubeysan soo gelisay gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaano ka tirsan gobolka Gedo. Degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa lagu soo waramayaa inay soo gaareen kumanaan kun oo askarta Itoobiyaanka ah kuwaasi oo wata gaadiid kala duwan. Ciidankan cusub ayaa maanta Soomaaliya soo galay xilli maalmo ka hor oo dhulka Soomaali galbeed ka dhacay kulan xasaasi ah oo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Itoobiya ay kula qaateen halkaasi xubno ka socday maamulka Jubbaland. ciidanka Itoobiya ayaa laga cabsi qabaa inay ku milmaan xiisada ka taagan gudaha Soomaaliya gaar ahaan loolanka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe, waxaana suurtagal ah inay la saftaan ciidamada Itoobiya maamulka Axmed Madoobe oo xilligan khilaaf adag uu kala dhaxeeyo dowladda federaalka Soomaaliya. Ma jiro ahdi ay dhowrayso dowladda Itoobiya maadaama dowladda Soomaaliya ay ka saartay howlgalka cusub ee bilaabanaya bisha soo socota kaasi oo bedeli doona howlgalkii ay ka mid ahayd Itoobiya ee ADMIS. waxaana Itoobiya laga doonayaa in maalmo gudahood ay ciidamadeeda kala baxdo gudaha Soomaaliya maadaama uu sii dhamaanayo howlgalkii ay ka mid ka ahayd. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhaqan gelisay go'aankii ay ka qaadatay ciidanka Itoobiya inay ka qayb noqdaan howlgalka cusub ee bilaabanaya sanadka cusub ee 2025 ee loogu magac daray AWSOM. waxaa sidoo kale dowladda Soomaaliya ay si cad u sheegtay in Itoobiya howlgalka cusub looga reebay sababo la xiriira xiisada u dhaxaysa labada dowladood ee ka dhalatay heshiiskii Abiy Ahmed uu la galay Muuse Biixi Cabdi. waxaana xusid mudan in dowladda Itoobiya ay ku guuldareysatay galaangala badan oo ay sameysay si ay uga mid noqoto howlgalka cusub ee bilaabanaya sanadka cusub ee 2025. sidoo kale tallaabadii ay shalay qaaday dowladda federaalka ayaa muujinaysay inay dhaqan gashay go'aankeeda kadib markii Itoobiya laga reebay shir Arbacadii lagu soo xiray magaalada Muqdisho oo u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo dalalka ay ciidamadu ka joogaan gudaha Soomaaliya ee qaybta ka noqonaya howlgalka cusub. ciidanka Itoobiya ee maanta soo gelisay gudaha Soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa inay abuuraan walaac cusub maadaama ciidamo aad u fara badan oo Itoobiyaan ah horey u joogeen gudaha Soomaaliya kuwaas oo qaar ay ka tirsanaayeen howlgalka ADMIS ee waqtigiisa sii dhamaanaya halka qaarna ay ku joogeen si sharci darro ah gudaha dalka. weli kama hadlin dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadan Itoobiyaanka ee soo galay degmada Doolow ee gobolka Gedo kuwaas oo loo maleynayo inay ku wajahan yihiin deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. wixii wararkan ku soo kordha daawadayaal waxaa si toos ah ugala socon kartaan boggayaga Wehelka Cusub Media. waad ku mahadsantihiin daawashadiina.